kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada xog cusub oo ku saabsan shir xalay ilaa iyo shalay villa Soomaaliya uga socday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada kaasoo looga arrinsanayay wajigabixii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala soo kulmay shirkii magaalada Kismaayo uu kula lahaa hoggaanka Jubbaland iyo sidoo kale qorshaha Jubbaland cusub ee ay dowladda federaalka Soomaaliya go'aansatay inay ka hirgeliso magaalada Galbehaare ee xarunta gobolka Gedo. maxaa ka soo baxay shirkii ugu dambeeyay ee xalay ilaa iyo shalay ay lahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo looga arrinsanayay xaaladda Jubbaland, qorshaha xiga, shirkii fashilmay ee Kismaayo iyo waxa markaasi ay go'aanka ku gaareen. intaanu kula wadaagin xogta haddii tahay booqashadaadii ugu horreysay kusoo biir bartan subscribe saara gambaleelka furo muuqaalkana like saar si uu meel dheer u gaaro. like waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka meel dheer uu gaaro dhinaca Facebook. haddii aad nagala socotana kusoo biir barta Facebook oo follow soo dheh muuqaalkana like t-shirta ha ka hilmaami si aad mar kasta u noqoto daawadaha ugu horreeya ee hela xogaha aynu halkan ku baahinana janalkan subscribe saaro. hagaaga madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii ka soo laabtay magaalada Kismaayo iyo qaybo ka mid ah golaha wasiirada ayaa shir dheeraad ah ku galay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta villa Soomaaliya oo ay kaga arrinsanayeen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Jubbaland wajigabixii madaxweyne Xasan uu kala soo kulmay shirkii magaalada Kismaayo. ilo xog ogaala ayaa inoo xaqiijinaya in kulanka looga tashanayay sidii go'aan looga qaadan lahaa arrinta Jubbaland iyo qorshaha xiga kadib fashilka shirkii Kismaayo. horumar la'aanta shirkii Kismaayo ku dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa keentay in xalay ilaa iyo shalay ay markaasi laba kulan oo qarsoodi ah isla markaana albaabada ay u xiran yihiin waqti dheerna qaatay ay galaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo iyadoo qayb ay ka ahaayeen shirka xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. madaxweyne Xasan ayaa xubnaha markaasi ka qayb galaya shirka xog ka siiyay wixii isaga iyo sidoo kale Axmed Madoobe soo dhaxmaray, waxaana uu markaasi sheegay in talada Jubbaland ay taalo inta u dhaxaysa villa Soomaaliya iyo sidoo kale Galbehaare oo Kismaayo ay ka soo dhamaatay sida markaasi ay noo xaqiijiyeen ilaa xog ogaalka ah ee kulanka ka agdhawaa. kulanka koowaad oo socday 2 duhurnimo ilaa iyo 4 galabnimo ayaa la isku raacay in markaasi la dhaqan geliyo qorshaha labaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana madaxweyne Xasan uu ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale kooxdiisa uu sheegay in ay keenaan farsamadii lagu suuragelin lahaa dhismaha maamul sharciyad ka haysta dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ah maamul ay markaasi xukumayaan dadka reer Jubbaland isla markaana si dhow ula shaqeynaya dowladda federaalka Soomaaliya. kadib kulanka xalay ilaa iyo shalay waxay ahaayeen kuwo markaasi lagu gorfeenayay dhammaan qorshayaasha dowladda federaalka ee ku aadan waxa markaasi laga yeelayo shirka Kismaayo kusoo fashilmay iyo qorshaha xiga ee dowladda federaalka Soomaaliya. kadib kulankii shalay waxaa markaasi xalay mar kale shir ku saabsan arrimaha Jubbaland uu ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana hogaaminayay ra'iisul wasaare Xamse xubno u badan reer Jubbaland oo iyaguna markaasi kulanka goobjoog ahaa. ra'iisul wasaare Xamse oo markaasi xubnaha xukuumaddiisa inta badan ee ka soo jeeda Jubbaland ay isku raacsan yihiin dhismaha Jubbaland cusub ayaa waxa uu markaasi u soo bandhigay ra'iisul wasaare Xamse xubnaha golihiisa wasiirada ee ka soo jeeda Jubbaland sida ay markaasi uga go'an tahay in ay keenaan qorshe siyaasadeed oo cad oo ku aadan Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi u muuqata in ay horey markaasi ka qaadatay go'aan ku saabsan Jubbaland, waana dhismaha Jubbalanta gobolka Gedo oo hadda markaasi gashay toddobaadyadii la soo dhaafay mid markaasi u muuqata inay dowladda federaalka Soomaaliya ay si dardar leh markaasi ay u ambaqaadayso kadib markii uu wajigabax ku soo dhamaaday wadahadalkii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo shalay markaasi ku soo gabagaboobay magaalada Kismaayo iyadoo oo aan wax natiijo laga gaarin. hadda waxaa muuqata in dowladda federaalka Soomaaliya ay durba qaadatay go'aan ka dhan ah Jubbaland iyada oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Xamse gacanta loo geliyay galka Jubbaland si markaasi ay go'aan uga gaaraan. dhismaha Jubbaland cusub ayaa ah markaasi qorshaha ugu dambeeya ee villa Soomaaliya hadda ay u muuqato inay ku dhaqaaqday kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo jeediyay ra'iisul wasaare Xamse iyo golihiisa wasiirada ee ka soo jeeda Jubbaland
inay keenaan qorshe siyaasadeed oo cad oo ku aadan Jubbaland sharciyad ka haysata dowladda federaalk Soomaaliya. Marka la eego hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo galka gacanta uu geliyay Ra'iisul Wasaare Xamse iyo golihiisa wasiirada ah inay keenaan Jubbaland sharciyad ka haysata dowladda federaalk Soomaaliya, waxay ka dhigan tahay in la doonayo in Ra'iisul Wasaare Xamse iyo golihiisa wasiirada ay u dhaqaaqaan dhismaha Jubbaland cusub oo sharciyad ka haysata dowladda federaalk Soomaaliya raallina ay ka tahay. Haddaba siday markaasi ku dhici kartaa in la dhiso Jubbaland sharciyad ka haysata dowladda federaalk Soomaaliya? Jubbaland sharciyad ka haysata dowladda federaalk Soomaaliya kaliya waxaa lagu heli karaa in dowladda federaalk Soomaaliya ay u dhaqaaqdo dhinaca Garbaharey iyo gobolka Gado si halkaasi ay uga hirgeliso Jubbaland cusub. Qorshahan waa kan kaliya ee dowladdu ay ku heli karto Jubbaland ay doonayso ee markaasi mid iyada sharciyad ka haysato. Garbaharey waxaa in muddo markaasi ka socday qabanqaabada iyo diyaar garowga, iyada oo dhismaha Jubbaland cusubna uu ahaa muddooyinkii la soo dhaafay mid si weyn warbaahinta u qabsaday, laakiin mar kaliya waxaa wareejiyay isla markaana hoos u dhacay doonistii Jubbaland cusub kadib markii madaxweyne Xasan uu safar ku yimid magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo caasimadda ku-meel gaarka ee Jubbaland, taas oo wadahadallo kula yeeshay madaxweynaha Jubbaland. Socdaalkii uu ku tagay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne Axmed waxay ahaayeen kuwo aan wax natiijo laga gaarin oo wajigabax ku soo dhamaaday. Kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxa uu markiiba ambaqaaday dhismaha Jubbaland cusub, iyada oo laga garan karo kulamada shalay ilaa iyo xalay ka socday filla Soomaaliya ee u dhaxeeyay Ra'iisul Wasaare Xamse iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dhismaha Jubbaland sharciyad ka haysata dowladda federaalk Soomaaliya. Qorshahan waxaa si weyn markaasi dowladda federaalk Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan uga taageeraya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo isagu markaasi ka soo jeeda Jubbaland, saaxiib dhowna in muddo la ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, laakiin waqtigan u muuqda inuu qaatay go'aan adag oo ka dhan ah Jubbaland, isla markaana uu doonayo in uu si dhaqsi ah u dardargeliyo dhismaha Jubbaland cusub ee laga hirgelinayo magaalada Garbaharey ee gobolka Gado, iyadoo hadda sidoo kale qorshahan ay qayb ka yihiin Maxamed Sheekh Ismaaciil Cabdullaahi Fartaag, Cabdirashiid Janan iyo xubno kale oo dhowr ah oo iyagu qorshahan si dhow markaasi u riixaya. Suuragal ma tahay in si degdeg ah loo ambaqaado qorshahan marka la fiiriyo go'aanka dowladda federaalk Soomaaliya? Kulamadii shalay ilaa iyo xalay dhacay waxay muujinayaan in dowladda federaalk Soomaaliya ay ka go'an tahay hirgelinta Jubbaland cusub oo ka madax bannaan midda Kismaayo ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. Haddaba gaaristii Kismaayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray waxay ahayd mid baasiin ku sii shubtay hamiga ah in la dhiso Jubbaland cusub oo ka madax bannaan midda Kismaayo degan. wixii warar ka soo kordho guud ahaan wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan. hadday tahay booqashadaadii ugu horreysay kusoo biirbartan oo subscribe saara gambaleelka furo, muuqaalkana like saar si uu meel dheer u gaaro. like waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka meel dheer u gaaro. dhinaca Facebook haddii aad nagala socotana kusoo biirbarta Facebooka oo follow soo dheh, muuqaalkana like iyo share ha ka hilmaami si aad mar kasta u noqoto daawadaha ugu horreeya ee hela xogay ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkana. channelkan subscribe saaro oo gambaleelka furo. mahadsanidin.